olole kor lagu qaadayo bilicda caasimada walaas oo iska kaashanayaan dowladda hoose magaalada Hargeysa iyo dadweynaha ku dhaqan caasimada sida warbixintan ugu diyaariyay wariyahayga Xamse Cali Bulbul dowladda hoose magaalada Hargeysa waxay bilowday dhigitaanka marmarka oo qayb ka ah qurxinta caasimada magaalada Hargeysa oo qorshihii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland uu faray maayarada dalka inay bilicda caasimadaha kor u qaadaan maayarka caasimada magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidiid iyo xildhibaano kamid ah golaha deegaanka iyo saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha bulshada ayaa waxay kormeel ku taageen suuqa Wahen oo laga bilaabay dhigitaanka marmarkii ugu horeeyay ee lagu qurxinayo caasimada magaalada Hargeysa maayarka caasimada magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidiid oo warkooban siiyay warbaahinta waxa uu sheegay inay qayb ka tahay oo hore u dhaxargay in marba lagu sameeyo goobaha ganacsiga ee caasimada magaalada Hargeysa waxaanu yiri hawshii marmarista halkan maalmaha dhagax dhignay ayaa intii hore wax la baneynay dadkii deganaa halkan iyadoo hawshan maalin habeen mooyaan maalin soconayn oo maalintii ay dadku meeqadaha ku ganacsanayaan imika xilligan habeenimada ah oo wixii ka bilaabma 12 habeenimo ilaa ay shaqadu xilliga socon doonto waa bariga oo meeqad walba in la dhameeyo dhowrkii meeqadoodba habeen in la dhameeyo shacbigana waxaan ka codsanayaa inaanay qofba marka hawshan la bilaabo si ay wax isku siman noqdaan inay sikadihiiba si ay isugu xidhmaan in cid gooni wada samayso oo aanay noqon muxuu ahaa wax qof walba iska dhigo oo waxay dadku ku jabaan oo mushkilad kale oo kala dheerayna noqon hawshaasina saasay ku socon doontaa waxaan halkan salaan uga digaysnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo hawshan ugu dhiirigeliyay qayb weyn ka ah agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada Hargeysa Khadar Yuusuf Cali xildhibaan shahar kamid ah golaha deegaanka caasimada Hargeysa oo iyaguna ka si ka hadlay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in waqti dambe oo xalay ah ay bilaabaan hawlgal balaaran oo bilicda caasimada kor lagu qaadayo oo la dhigayo marmarka waxay yiraahdeen caawa waxa farxad weyn noo ah inay noo bilaawantay mashruucii marmar dhigista caasimada oo runtii ka bilaabmay xuduntii caasimada downtown-ka gaar ahaan city center-ka ama agtiisa runtii fooqa daabshiil oo bartanka xudunta caasimada ku beegan runtii mashruucan oo hore u dhagax dhigay maayarka caasimadu waxa caawa qaybtiisa ugu horeysay ay ka bilaawtay downtown-ka sidaa uu sheegay agaasimihu kulay farxadii ayuun bay tahay inaan ilaa 12 habeenimo u soo jeedno hawlgalkaas caasimada bilicdeedii wax lagaga bedelayo hadii ilaahay yiraahdo saacadu imika waa 12 habeenimo dadku kulay waxaan u soo jeednay waxa weeyaan farxadda agaasimuhu sheegay geesta kalena maamulka dowladda hoose ayaa ka warbixiyay olole ballaaran oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku baneeyeen jidad kamid ah xaafadaha magaalada Hargeysa sida warkan ugu hayo wariyahayga Cali Axmed Cawaale geesta kalena maamulka dowladda hoose caasimada Hargeysa ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen halka ay marayso xaaladda baneynta jidadka ee ay ka wadeen degmada Gacanlibaax maalmihii ugu dambeeyay injineerka isagoo gacanta ku haya howlaha baneynta jidadkaasi Cabdilaahi Ubax ayaa faahfaahin uu siiyay telefishinka qaranka waxa uu ku tilmaamay in ay si habsami ah hawshaasi u socoto waxa uu tilmaamay in laga maarmaan tahay gacanta looga baahan yahay bulshada ku dhaqan agagaasi ay ka socoto baneynta wadooyinku maadaama ay tahay wili adeeg ka wada dhaxeeya guud ahaan bulshada mashruucan sidii uu hore maayarku sheegay waa fayskii labaad ee wadada 150ka way ay muuqataa baahi badan in loo qabay xataa nabadgelyo ahaan bay degmadu imika dadkii meesha deganaa leeyihiin meeshan ciidanka iyo dhirta iyo xabaalaha dadku habeenkii ma mari jirin inta badan hadii aanu qofku in badan isku soo kaashanayso urursan dadweynaha goobta deganna waxay runtii aad ugu diirseen waa inay soo dhaweeyeen xataa kuwa ay wadadu martay ayaa iyaga oo aan hayninba meel ay u guuraan hadana sandaqadahoodii bulshada si furfuranaya si baahida guud ay weegaan xildhibaan Cabdilaahi Awaadan ayaa isla dhinaciisa tilmaamay inay tallaabooyinka noocan qayb ka yihiin dadaalada ay dowladda hoose ku dardargelinayso adeegyada ay ka filayso bulshadii soo dooratay isla markaasina ay kuwan iyo kuwa kaleba halkaasi ka sii ambaqaali doonaan wakiilka golaha deegaanka u qaabilsan degmadaasi Gacanlibaax Axmed Cali Haybe ayaa isna dhinaciisa tilmaamay in jidkan iyo jidad badan oo kale oo degmadaasi Gacanlibaax xidhan ay ku tala galeen inay sida ugu dhaqsaha badan u baneeyaan waxaan u mahad celiyay dadka ku dhaqan
degmadaasi oo uu tilmaamay in badan oo ka midii ay ku gacan siinayaan howlaha la xidhiidha banaynta jidadkaasi duqa caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo ka waramayay howlahan banaynta jidadka ayaa tilmaamay in wajigii saddexaad halkaasi laga sii ambaqaali doono waa maalintii saddexaad ee hawshan socoto wadadan 150 waa distance soo goysay cagaftu waxaan filayaa inaynu iminka maalmaha saddexda cisho soo socdo gaari doono laamida Berbera halkaas oo ay ka sii bilaabmayso فيسك صدحات على dadweynaha la shaqeeya shaqaalaha dawladda hoose geesta kale waxa uu duqa caasimaddu digniin u jeediyay dadka ay ku baaqatay cashuuraadka lagu leeyahay isaga oo tilmaamay in ay qiimo dhimis u sameeyeen dhinaca cashuuraadka isla markaasina dadka deerarka waaweyn leh iyo kuwa kale ee ardaydaha dhulka saddexda bilood ee fooda inagu soo haya wixii ka dambeeya ganaax iyo xarig ay ku mutaysan doonaan haddii ay cashuuraadka si habsame u soo bixin waayaan geesta kale waxa uu duqa caasimaddu ka waramay tallaabooyin ay doonayaan inay kor ugu qaadaan kuna soo nooleeyaan bilicda magaalada waxaana arrimahaasi isaga oo faahfaahinaya uu yidhi duqu qolada jaadka qolayada iyo meelaha ku iibisa suuqa iyo xaafadahaba inaan loo ogolaan jaad dambe bannaan yaala muddo 2 bilood gudahooda inay magaalada waxaan ka sameeynaa xeertaadii jaad lagu iibinayo qofkii doonaya inuu dalabkiisa soo dhiibto qofkii kalena uu maqsil 2 bilood gudahood ku kiraysto waxaan imikana sii mamnuucnaa caleenta la hor dhigo jaadka qolayada jaadka laga bilaabo sabtida soo socota kolay kasta oo hor taalo caleeni waa la ganaaxi doonaa shaqaalaha dawladda hoose way ganaaxi doonaa